wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ay Somaliland Ali Xamed Jibriil kusmaha barsaabka gobolka Saaxil ahna barsaab ku-xigeenka gobolka Saaxil madax sare oo ka tirsan hay'adaha dawladda ee Somaliland xildhibaano heer qaran ah ayaa saaka waxa ay ka qayb galeen xaflad si weyn loo soo agaasimay oo shahaadooyin loo guddoonsiinayay ardaydii ugu horeysay oo diblooma ka qaadata jaamacadda Golis laanteeda magaalada Berbera ardaydan oo ka qalin jabisay kulliyadaha sharciga علومta كمبيوترka iyo ganacsiga ayaa tiradoodu dhamay 20 arday oo isugu jira rag iyo dumar ugu horeeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis laanteeda Berbera xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire maanta waa maalin farxadeed waa farxad qiimo leh oo ah midhihii ugu horeeyay ayaynu goosanaynaa ee jaamacadda Golis ee Berbera maanta dhaxda sharaf gobolkan Saaxil waa markii ugu horeysay ee abid taariikhdeeda laga qalin jabiyo kulliyadahan aan ka hadlayno ee ah kulliyadda sharciga iyo kulliyadda culumta computerka iyo kulliyadda ganacsiga talabaadna waxa weeye inagoo maanta furayna library-gii ay jaamacadda Golis Berbera ay yeelanayay oo walillahi alxamd aan ku guuleysnay inaan keeno in ka badan 5,000 oo buug oo cilmi iyo diin isugu jirta maanta ay barayno yaalaan xildhibaan Dayb Xasan Boobe oo ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ayaa ayaguna si weyn u soo dhaweeyay midhahan cusub ee jaamacadda Golis abuurtay halkan laba qodob baan ka hadlayaa waxa weeyaan mid waa jaamacadda Golis midna waa xildhibaanada ka soo baxay gobolka Saaxil midna waxa weeye waxbarashada halkan waxa horta maxadda ugu weyn leh jaamacadda Golis oo sababtay in gobolkan Saaxil ay mugdiga ka saarto oo uu sabab yahay xildhibaan Naasir Xaaji Cali oo ka soo gurmaday oo gobolka Saaxil ka soo bixin oo ka soo gurmaday gobolka Burco waxaan qof wasaaradda aan ka shaqeeyay dhijiga ka ay kalluumaysiga qiimaha ay qaranka ugu fadhiyo waa ogtihiin waxaynu leenahay xeeb dheer baa Ilaahay nagu manaystay waa 850 kilometer from east to west waxa weeye waynu jiraan dad in badan ka shaqeynaya wasaaradda oo laakiin wax academic oo yani culumta badda hal nin baa maanta jooga hal nin baan u doon fadhisanaa wax weydiin marka jaamacadda Golisna waxaan ka codsanayaa inay culumta badda iyo faculty ay wax loogu soo kordhiyaan مسؤولينta xisbiyada ummad Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo xisbiga Ucud Faysal Cali Waraabe ayaa ayaguna sheegay munaasabadan inay aad ugu faraxsan yihiin in aqoonta la kobciyo dhalinyaradana wax la baro akhirkiina gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis Dr. Saciid Maxamed Xasan ku-xigeenka barsaabka Saaxil ahna kusmaha barsaabka Saaxil iyo gudoomiyaha xisbiga Ucud Faysal Cali Waraabe ayaa ardaydaasi shahaadaha guddoonsiiyay iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay riwaayado iyo heeso ka turjumaya waxbarashada iyo faa'iidada ay leedahay ياسين شام علي هذا وناق نيوز مقالة Berbera.